بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه، أما بعد. وباللوغ كتابك الأصول الثلاثة وأدلتها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. nusqooyinka say u badan yihiin waxay ku bilaabayaan bismillaahi, qaarna kuma jirto. marka sheekhu wuxuu ugu bilaabay bisinka oo muqadimo kale ugu samayn. waa caado ay culamo badan sameeyaan oo ay bisinka uga kaaftoomaan khudbo kaleeto. qur-aanka ilaahayna waxaa lagu bilaabay bisinka lagu bilaabay. nabiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa mid haddii uu risaalo qoraayo dad fadhin u diraayo bisinka ku bilaabo. marka sidaas ayuu ugu bilaabay sheekhu, bismi illaahi araxmaani araxiim. bacdu waxa weeyaan waa bismillaahi ugu jirtaahi waa isticaano iyo kaalmaysi weeyaan, oo macnaheedu u dhiganto abtadi'u ama astaciinu abtadi'u bibismillaahi araxmaani araxiim isticaanatan wa tabarukan. barakaysi uu barakaysanayo qofku magaca ilaahay, iyo kaalmaysi uu kaalmaysanayo allah subxaanahu ayuu ugu bilaabaa. allahna waa magaca calamka ku ah ilaahay subxaanahu watacaala, oo macnihiisu yahay midka la caabudo. alilaahay ka timid maaluuhu ah midka la caabudo allah subxaanahu watacaala weeyaan. asmaada dhanna isaga ay tabac u yihiin, oo isagay ay sifaad iyo tilmaan tabac u yihiin. arraxmaani waxaa lagu macneeyey in loola jeedo allah naxariista guud ahaan naxariista. arraxiimna midka naxariista gaar ahaaneed naxariista. waa farqi furuuqda ka mid a loo dhaxaysiiyey arraxmaan iyo arraxiim. in arraxmaan lagu fasiro naxariis guud inuu naxariisto oo mu'min iyo gaal iyo khalqiga guud ahaan uu u naxariisto. arraxiimna mu'miniinta si gaar ahaaneed uu ugu naxariisto. allah iyo arraxmaan labaduba waa magacyada waxay ka mid yihiin ilaahay aan lala wadaagi karin. magacyadu waxay u qaybsamaan magacyo axadka lagu tilmaami karo iyo magacyo ilaahay subxaanahu uu la gaar yahay oo aan axadka lagu tilmaami karin. macnaha ma axadka lagu tilmaami karaa marka la leeyahayna waxaa laga wadaa macno kale ixtimaalaan oo macnaha ilaahay loogu tilmaamay aan ahayn. laakiin magacyadaani ma ixtimaalaan magacyo macno aan ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay mooye wax kale ma ixtimaalaan. sheekhu wuxuu yidhi iclam raximaka allah, ogow allaha kuu naxariiste, annahu yajibu calayna inay waajib nagu tahay, annahu sha'nigu waxa weeyaan yajibu calayna inay waajib nagu tahay tacalumu 4 masaa'ila, 4 masale inaan ogaano inay waajib nagu tahay inaan ogaano. marka waataan hor usoo ishaarnay 2 muqadimo inuu sheekhu ku bilaabay kitaabka. mid waa midaan, midna waa noo soo socotaa. midaani waxay ka hadlaydaa 4 arrin uu sheekhu xooga saaray oo ah alcilmu walcamalu waddacwatu ilayhi wasabru fiih. intaas ayuu uga hadlayay waajibnimadeeda. marka wuxuu yidhi iclam ogow. taasna wuxuu ula jeedaa tambiih iyo baraarujin qofka wax baranaya la baraarujinaya. raximaka allahu, allah kuu naxariistay. taasna waa waxa weeyaan duco uu u ducaynayo qofka wax baranaya ardayga. waxaa ku jirta marka talatuf iyo rifqun bitaalib, naxariisasho loo muujinayo qofka wax loo sheegayo. qofka wax loo sheegayo iyadoo wanaag loo sheegayo ayaa haddana uu mudan yahay in
dariiqo wanaagsan loogu sheego oo uu wax ku qaato waana adabka qofka naasixa ah sidoo kale waxaa ku tusinaya sheekha cinaayada iyo juhdiga uu ku bixinayo addoommada isagu midna ku leh qofkii wax barayay ayuu haddana wuxuu dareensiinayaa naxariis iyo jiraac iyo rifqi annahu yajibu calayna inay waajib nagu tahay tacalumu 4 masaa'il 4 arrimood inaan baranno waajibnimadaas marka waajibkii cayniga ahaa iyo waajibkii kifaa'iga ahaa labadu waa soo gelayaan oo waajibku laba u qaybsamaho midna waa mid cayni qofka oo isaga ku waajib ah oo qofkana uuna ka taxamuli karin sida salaada iyo soonka iyo xajka iyo zakada midna waa mid muslimiinta oo dhan si guud ahaaneed waajib ugu ah oo haddii in ku filan ay u istaagto inta kale ka dhacaya tusaale ahaan dacwada dadka khayrka loogu yeerayo oo kale addacwatu ilay haddii qayb ka mid ay u istaagaan muslimiinta oo ku filan inta kale ay ka dhacaydo laakiin haddii ay u istaagi waayaan dadkao dhan ay wada dambaabayaan marka midka cayniga ah adigu si gaar ah waajibku ugu yahay kan kalena inaad barata lagaga baahan culamadu waxay ka hadlaan qofka oo barta cilmiga waajibka cayniga baranaya iyo qofka baranaya waajibka kifaa'iga ah yaa fadli badan waxay yidhaahdaan qofka waajib kifaa'iga baranaya fadli badan sababtoo ah muslimiinta oo dhan uu dembi ka ridaya laakiin qofka waajibka cayniga baranaya isaga naftiisa wax anfacaya ayuu baranaya naftiisa wax usoo laabanaya baranaya labadaba marka waajib ay ku tahay laakiin waa sii kala waajibsan yihiin sidaasoo kale marka uu mudan yahay qofka si guud ahaan ugu mashquulsan dadka inuu waajib ka rido ama dadku wixii laga rabay dhammaantood isagu rabo inuu istaago ayuu mudan yahay isna in lagu garab galo oo nuqsaanta kale laga daariyo oo lagu taageero marka waxaan ula jeednay labada waajibba waa soo gelayaan masaa-isha noo soo socota macnaha kuwa waajib cayni ahna waa ku jiraan sida alcilmu alcamalu oo kale kuwa waajib kifaa'iyana waa ku jiraan sida addacwatu ila allahi subxaanahu watacaala alulaa wuxuu yidhi waxa weeyaan 4 masalena ma ahan ulajeedka sheekhu inay 4toodan oo kaliya ay waajib tahay oo waajibaad kaloo fara badanaa jira laakiin wuxuu 4tan usoo qaatay muhiimad gaarahay leeyihiin iyo inay yihiin bilowga qofku uu ka bilaabayo ayuu usoo qaatay ulajeedku ma ahan xasri iyo koobis uu ku koobayo intan waajibka alulaa midda koowaad waxa weeyaan 4 mas'alo waan baranaynaa alcilmu waa cilmigii inaan cilmi barana ka waajib nagu ah inaan cilmi barano ayaa waajib nagu ah ilaahayna waxa lagu caabuda shayga ugu horeeya iyo shayga ugu fadliga badanba waa cilmiga alimaamu zuhri wuxuu yidhi maa cubida allahu bishayin afdala min alcilm zuhri waa taabiciintu ka mid yahay ilaahay laguma caabudin uu dhahay shay ka fadli badan cilmiga wax cilmiga ka fadli badan laguma caabudin qabla dalika cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu wuxuu yidhi alguduwu walrawaaxu fi tacalumi alcilmi afdalu cinda allahi min aljihaadi fi sabiili illah in loo jarmaado oo loo galab caraabo cilmi barashadiisa ayaa ka fadli badan ilaahay agtiisa jihaadka jidka ilaahay lagu dagaalamo cabdullahi bn cabaas aa odhanaya radi allahu canhu jarmaadada loo jarmaado iyo caraabidda loo caraabo in cilmiga la barto waa kasii fadli badan tahay aljihaadu fi sabiil illah oo la garanayo macnaha fadliga uu leeyahay iyo weynankiisa alimaam axmed ibn xambal raximahullah wuxuu oran jiray طalab alcilmi afdal alacmaali liman saxat niyatuhu cilmiga in la dalbo ayaa acmaasha ugu fadli badan waa qofkii niyadiisu ay sax tahay oo niyo wanaagsan cilmiga ku dalbaya ee ujeedooyin xun aan cilmiga u dalbayna ujeedadii loogu talagalay u dalbaya qofkaas shaqada uu ku jiraa waa acmaasha ugu wanaagsan camal la qabto mar kale wuxuu yidhi alcilmu laa yacdiluhu shay cilmiga wax u dhigmaa ma jiraan tafdiilka oo jihaadka
laga fadilayana sidoo kale way ka sugnaatay way ka soo aroortay inuu yiri tacalumu alcilmi wa tacliimuhu afdalu aljihaadi afdalu min aljihaadi wagayri cilmiga la barto iyo in dadka la baraahi jihaadka waa ka fadli badan tahay iyo jihaadka kayrkiisba uu leeyahay marka qodobka koowaad waxa weeyaan sheekhu alcilmu weeyaan cilmiga oo dhan ulama wada jeeda sheekhu wuxuu ula jeedaa midka ugu horeeya oo ah usuusha wuxuu yidhi wahuwa kan ula jeedaa waxa weeyaan macrifatullah ilaahay in la barto macrifatullahi ilaahay in la barto loola jeedo in la barto maa wasafa allahu bihi nafsahu iyo wamaa samaa bihi iyo wamaa nafaa canhu waxa ilaahay naftiisa uu ku tilmaamay iyo wuxuu ku magacaabay inaad barato iyo wuxuu ilaahay naftiisa u diidayba sida noo soo socota dabcan biladilla aad ku baratid daliil aad ku baratid wamacrifatu nabiyihi nabigiisa inaad baratid sala allahu calayhi wasalam wamacrifatu diin alislaami iyo diinta islaamka inaad ku baratid biladillati daliil aad ku baratid cilmigii marka uu ka bilaabay macrifatullah ilaahay barashadiisa oo ah macrifatu maa wasafa allahu bihi nafsa ilaahay wuxuu naftiisa ku tilmaamay inaad ka baratid rasuulkiisuna uu ku tilmaamay iyo waxa ilaahay iska anfiyey isku diiday tilmaamaha nuqsaanta ilaahay isku diiday iyo wuxuuna mudnayn intaasna aad ku baratid bil adilla daliil aad ku baratid marka ilaahay oo la bartaahi waxa waajibaadkii ugu horeyda laguna barto bidaliil daliil in lagu barto qofkuna markuu ilaahay uu barto ayuu jeclaadaa oo weyneeyaa oo waajibkiisa xaqiisa ka soo baxaa alimaam ibn qayyim raximahullah wuxuu yidhi man carafa allaha biasmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalihi axabbahu laa maxaala qofkii ilaahay barta oo ku barta magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo afcaashiisa barta qofkaasi waa lagama maarmaan inuu ilaahay jeclaanayo marka jacaylka ilaahay wuxuu ka dhashaa wuxuu ka dhalanayaa barashadiis inaad barato markaad baratid ayaad baranaydaa waxa uu kaa mudan yahay nolosha qofka marka ay ugu muhiimsan tahay cilmigiisayna ka bilaabataa شيخ الإسلام رحمه الله وحير اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله وتوحيده والإيمان به هو الشيء يا معناها وهو لي معانسك يا فرحة يا وقتك كو ناكسن هذا يا النعمة أن العبري كريم ويريال وعبرك وين وحال لقاها إلهي برشديس iyo tawxiidka ilaahay aad barato iyo inaad rumaydo ilaahay aad waxido oo aad rumaydo intaasaa laga helaa marka sacaadada iyo wanaaggu wuxuu ka dhashaa sidoo kale barashada allah subxaanahu watacaala ولهذا أهل السنة والجماعة وحي يراهدين أول واجب وهو معرفة الله إلهي إن لقرته ولو قرت مركز توحيد كيسي وحو مدنيها لو قرت دليلك قرآن كي سنة هل كأهل البدع أي كليهين وحا واجب النظر يا التفكر إن لفكروا واجب تفكر في الآيات الكونية آياتها كوني قال لغو فكرة آياتها شرع قال ما هاني أركا إيا دولك إيا مخلوقات كاس إن لغو فكروا واجب إليهم قاركونا إليهم وحا واجب الشك إن لا شكيا واجب مركا هوري مركا كدب شكي يصير لسيسار لها لو فكروا أهل الكلام كساس إليهم وأشاعر أي كمتان وإن لفكرها إليهم ولغو فكروا آيات ككوني قال سي إلهي لو سوغا مركاس وحي سوغا أيانا ويسوغي دونان وتوحيد الربوبية إلهي ربنا إنه لقاري هي سوغي دونان لكن أهل السنة والجماعة سياس معهم waxay leeyihiin shay ugu horreyn ugu waajib oo ilaahay inaan garanno nacam mudnaanta uu mudan yahay tilmaamihiisa oo dhan iyo mudnaantiisa tawxiidka uu mudan yahay in isaga cibaadada loo gaar yeelad garanayda intaas oo dhanna dariiqa loo maraahi waa qur-aankii sunnada
ma ahan inaad wax kale ku mashquusho qur-aankii sunnada laga qaataa wixii ayna yidhaahdeen oo ilaahay noogu tilmaameen iyo wixii ilaahay uu yidhi anigaa leh hala ii daayo oo anaa mudane hala ii gaar yeelo halkaasa laga qaataa qur-aankii sunnada laga qaataa wamacrifatu nabiyihi nabiga in la barto nabiga in la bartana waxaa loola jeedaa maqsuudkii loo soo diray nabiga sala allahu calayhi wasalam maxaa loo soo diray horta inaad garatid waxaa loo soo diray diin in loo soo dhiibay oo adiga lagugu soo dhiibay oo diintaas adiga ay kula hadlaydo ilaahay inaad ku caabuddo lagaa doonaya amarada ku jira aad sameydid nawaahida ku jirta aad ka dheeraatid wixii akhbaaraho lagu sheegay aad rumaydid ayaa lagugu soo diray kadibna markaas aad rumaydo aadna raacdo marka inaad garatid maqsuudka loo soo diray iyo aliimaanu bih inaad rumaydo iyo watibaacuhu inaad raacdo sidaasaa ayaa loo soo diray iyadoo faahfaahsanna kitaabkaba ayaaba loo alifayba al-usuul thalaatha waxaa loo alifayba waa in la faahfaahiyo arrimahaas wamacrifatu diin alislaami iyo diinta islaamka in la barto diinta islaamka in la barto biladillati lagu barto daliil in lagu barto caqiidada marka culamada waxay yidhahaan caqiidada ansixi maydo taqliid inaad daliil ku baran ee aad tirahda sheekh hebel sidaas yiri waa bes waa ugu filanta sidaas waa sidaas waxaana u daliila in sheekh hebel sidaa yiri midaas lagaa yeeli maayo oo caqiidada kuma ansaxdo waxaa waajiba qofku inuu caqiidada daliilkeeda ku barto ayaa ku waajiba masaaishan marka diinul islaamkaas wuxuu ula jeedaa sheekhu masaa-isha kale oo ka soo hartay tawxiidkii waa ku jira macrifatullahi wa macrifatu nabiy oo ku jiraan laakiin waa kasii caamsan yihiin masaa-ishii kale oo waajibaadkii kalena diin alislaam ay ku jirtaa iyaduna halkaasay ku jirtaa saddexaas arrin ayaa waxaa koobsanaya alcilm ayaa koobsanaya ilaahay inaad garatid nabigiisa garatid tafaasiisha diinka kalena aad garatid intaas haddii aad garatid marka oo aad intaas baratid ku dhaqankeediin la timaadid macnaha cilmi weynaa kuwa xasriyood haydaa cilmi weynaad haydaa kuwa xasire xaqii aad garatay aadna ku dhaqanto ku harsan markaas dadkuna intay ku kala sarreeyaan waaba intaasba waxay ku kala fadli badan yihiin oo ku kala sarreeyaan waa barashada cilmiga qof waliba heerka uu ka gaaray iyo qaabka uu ugu dhaqmo ibn alqayim wuxuu yidhi raximahullah kamaalu linsaani madaaruhu calaa aslayn qofka kamaalkiisa kaamilnimada qofku waxay ku wareegsidaa laba arrin midda koowaad waxa weeyaan macrifatu alxaqi min albaatil inaad xaqa garato xaqa ilaahay subxaanahu nabiga iyo diinta inaad garato ood baatilka ka garato iyo wa iithaaru alxaqi cala albaatil iyo baatil xaqa inaad ka hormarido baatilka oo xaqii aad ku dhaqantidood samaydid isagii hormaridid labadaasay aad dadka kamaalkooda ku dhisan yihin marka wuxuu leeyahay wamaa tafaawata manaazilu lkhalqi cinda allahi fi dunya walaakhira ila biqadri manaazilihim fi haadayn alamrayn dadku waxay ku kala sarreeyaan ilahay agtiisa waa labadaas arrin adduunya aakhiraba qof waliba intuu xaqa barashiisa ka gaaray iyo intuu ku camalfalkiisa iyo ka horumarinta baatilka ku horumarinaya ka gaaray uu qofka kale ka sarreeyaa intaasaa lagu kala sarreeyaa athaaniyatu masalada labaad waxa weeyaan alcamalu bihi in lagu camal falo cilmiga in lagu camal falo marka camalfalku waa thamaratu lcilmi wabihi yazdaadu lcilmu wayathbut cilmiguna intaasuu ku kordhaaba ku camalfalka lagu camalfalo ku kordhaa ku camalfalka lagu camalfalona ku sugnaadaa midkii aad baratay ku sugnaanaya ilaahay subxaanahu watacaala waatuu yidhi waaladiina htadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum kuwa hanuunay oo hanuunka qaatay hanuunkii barteen waana ku hanuunin oo ku camal faleen zaadahum huda ilaahay hanuuna usii kordhiya wa aataahum taqwaahum taqwana waa siiya markuu qofku markuu ku camal falo wixii uu bartay ayaa isagiina u sugnaadaa wax kalena u kordhaan waana waajibka cilmiga qofku markuu barto cilmigii inuu ku camal falaa loo baahan yahay xadiidkiina waxaa ku jirtay
وعن علمه فيما فعل فيه وحيالا قفك اللي ويدينا وأنا قمريه صدولك كقاعدين ماشي مالك قيامها إلا إنه كجواب مويه وحاكمد علمي maxaad ku samayday wixii aad baratay maxaad ku samayday marka cilmigan ku soo gaarayo oo ama ha kugu soo gaaro maqal aad dhegta ka maqashid ama arkid aad aragto ha kugu soo gaaree cilmigaasi waa mid lagula xisaabtami doono maxaad kaga camal fashay marka ku camal falkii cilmiga ayaa la weydiinaya wa can cilmihi fiima facala fiima facal muxuu ku sameeyey cilmigiisii muxuu ku camal falay wixii laga reebay ma ka reebtoomay wixii la farayse ma fartoomay weeyaan qofku marka wuxuu caalim ku yahay oo cilmigiisu waxtar leeyahay markuu camal falo haddii kale waa jaahil maanaa jaahilnimadiisii oo hore waxba ma dooriyo bal wuxuu dheer yahay dembi ayuu dheer yahay iyo su-aal alfudayl ibnu ciyaad zaahidka ahaa wuxuu yidhi imaamka caalimka laa yazaalu alcaalimu jaahilan xataa yacmala bicilmihi idaa camila bihi kaana caaliman qofku ka zuuli maayo inuu jaahil yahay qofka caalimka jaahil ka zuuli maayo xataa hadduu cilmigii barto ilaa uu cilmiga kaga camal falaayo markii uu ku camal falo ayuu caalim noqonaya markaasuu caalim noqonaya marka cilmiga ku faan looma barto ee ku camal fala loo barto ku camal fala loo barta midka marka cilmigiina uu ka muuqan haddana odhanaya intaasoo jaamacadan ka baxay iyo takhasuskaasaan haystaa iyo kada weli jaahilnimadii ku sugan yahay ilaa cilmigii uu kasoo muuqanayo oo diintii ka muuqanayda ku camalfalkeeda waalcamalu bihi iyo in lagu camal falo ayaa qodobkii labaad oo waajibka ku ah addoonkii inuu cilmigii barto kadibna uu ku camal falo athalitha midda saddexaad waxa weeyaan addacwatu ilayhi inuu dadka ugu yeero cilmiga inuu dadka ugu yeero kaasaa la fara qofkii xaq gartaahi oo bartaahi waa inuu dadka ugu yeero qofku marka uu kaamil ku noqdaa inuu keyrkiis kamilo isaga kaliya kaamil iskama noqon karo laakiin keyrkiis waxa ka dhiman inuu dhammaystiro ayaa kaamilnimadiisa ka mid ah ilaahay sidaasu marka rususha la soo diray waxaa loo soo diray in xaqii la garansiiyey kadibna la yidhi xaqa faafiya udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana wajaadilhum bilatii hiya axsan ilaahay wuxuu yidhi jidka ilaahay dadka ugu yeer jidka ilaahay dadka ugu yeer waajibay kugu tahay marka udcuu ilaa sabiili rabbi adoo xikmad ku dhaahan iyo murti iyo mawcido wanaagsan dadka ku wacdinaya ee qof xaalad waliba iyo qof waliba sidii wax loo garansii karo u garansiinayo إلهي وحير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كلها ليلي كان واجدك أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا إلهي ضدك أغيره أنا علمي كسوغا علمي يقين أنا كسوغا وحأغيره يا أقانا أيان ضدك أغيره أنيقا يوحي جدك يقرأ سلاسان إنا ضدك دين تأغيره وعلمك أن dadka ku faafino annagoo cilmi ku dheehan sidaas dheha leer qul amara lagu sii dadka macnaa dacwadii ugu yeer garansiina inay arrintan waajib tahay in dadka wax loogu yeero oo xaqa loogu yeero jidkii ilaahay inay tahay hadihi sabiili adcuu ila allah jidka nabi maxamed marka waxa waaye sala allahu alayh wasalam cilmigii markii lagu soo dejiyey kadib cilmigii bartay inuu faafiyo oo dadka baro sidaasoo kale waxa ah qof waliba nabiga ku daysaday waman ittabacani qof waliba ku daysaday waxa laga rabaa wixii uu yaqaano inuu dadka baro ayaa laga rabaa waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixa ila allahi wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin yaa ka wanaagsanaa le qof ku qawlay oo yiri qof yaa ka oraah wanaagsan yiri ilaahay dadka ugu yeeray ilaahay u hoggaansama ilaahay waxaan idin faray ilaahay baa waxaan idinka reebay yaa ka wanaagsan haddana camal wanaagsan samaynaya waxaad ka wanaagsan ma jira qofkii aad khayrka ugu yeertay wanaagga ugu yeertana wanaaggii aad ugu yeertay haddii uu sameeyana waxbaad ku leedahay oo camalkii uu sameeyo isagoon laga nuqsaaminayn ayaa adiguna ajirkiisoo kale leedahay haddii aanu
fartoomin oo kaa qaadanna waajibkiyaa kaa dhacay adiga waajibkiyaa kaa dhacay inaad khasaartay ma aha lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam ilaahay inuu kugu soo hanuuniyo hal nin oo keli ah ayaa kaaga khayr badanaya lili geela carabtu dhaqato ee cascas kaasaa kaaga khayr badan marka waa inaad dadka dacwada ugu yeertaan qodobka saddexaad ayaduna waajib afraad ayay kugu tahay dacwaduna waxay ku dhacdaa oo ku ahaataa bilmaqaal wa bilficaal labadaba maqaalay ku ahaataa inaad dadka wanaagga ugu yeertahay waa dacwo sidoo kale ficaalay ku ahaataa oo ficil ahaan inaad dadka dacwo ugu yeerto oo aad adigu diintii ku dhaqanto akhlaaqdii diintu ay kaa muuqato oo aad xumaantii ka dheeraato ay kaa muuqatahay iyaduna waa dacwo kale qofku inuu akhlaaqda wanaagsan dadka kula dhaqmo oo markii qof uu dulmiyo oo dulmigiisii u sabro naftiisa ka adkaado ee markii qof ku afxumaado hadal xun yidhaahdo u sabro hadal wanaagsan ugu jawaabo ee wanaaggii uu ka muuqdo cibaadadii ay ka muuqato xijaabkiisii iyo qaabku u labisan yahay iyo qaabku u socdo iyo qaabku u hadlayo ay ka muuqato waxa weeyaan qayb dacwadii ka mid ah oo dadkii wanaaggaas ay kaaga daysanayaan oo ay u arkaan inaad ka wanaagsan tahay mudan yihiin inay kugu daysadaan halka qofka xumaanta ku dhaqmaya xumaanta ku qawlaya oo labiskiisa xumaantu ka muuqato uu dad ugu yeerayo oo qolo kale uga daysanaydo sidaasoo kale weeyaan qofkan mu'minkaana marka waxay ku ahaataa bilmaqaal inaad qoraal aad qortid amaad ku dhawaaqdid iyo bilficaal inaad ficil ahaan u muujiso diintii labaduba waa cibaado weeyaan waana dacwo inaad qofkii ugu yeerayso qodobkaas saddexaad marka waxa weeyaan dacwatu ilayh waana jidkii ambiyada ay qaadeen weeyaan qofkii caalimeyna waa warathatu lambiya qofkii cilmi baranaya ama bartay jidkii ambiyadu hayaaho ambiyadii uu bedelayo oo uu dhaxlayo laga rabaa inuu jidkaasoo kala qaado ana waman ittabacani الرابع مدة أفعال وحويان الصبر على الأذى فيه إن لغو الصبر على الأذى فيه يبكى كاسو قارع فيها أي في الله إلهي يبكى كاسو قارع في جنب الله إلهي درتيس يبكى كوسو قارع فيه أي في أجل الله إلهي درتيس يبكى كوسو قارع أنا أصبرت معناها دعودي دينتي أتكون رقم ميسي لبا كاسو قارع oo lagu dhibaayo u yeerista aad dadka ugu yeeraysidna dhib kale kaa soo gaaraya iyadan marka waxaa kugu waajiba inaad u sabartid midaas waa dariiq la soo maray oo la og yahay inay sidaas tahay waa sunna maadiya in qofkii diinta ku toosnaado aan la dhibaayo waxaa kasii dhib badan isagan qofkii maaragtay isku daya inuu dadka kala toosiyo isna dhibaayo walaqad kudibat rusulu min qablika فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إلهي وحو يري ولا بيني رسول الله كاهر إذا لبيني وأنا صبرين بينتي لبيني صبرين وأنا لدبا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله إلى ويمد نصر كان سوق جاري وإلهي قرب سي أنتو نسيدا سيكو سعنا إذا وحلب بدلا يا مجرته معناها إن قفك وناق الشيقا يا مددك وناجنا ودك إصلاحنا ومصلحة إن لا رباهي وسنة تكتي هذا نجري دون وحس بدل اللي مجران قفوا لي وانا ويستاغه وقسم لنا ديو marka isaga laga baahan yahay inuu u sabro oo ku sugnaado oo duruq uu la yimaado oo ugu sabro wanaagina u gudbiyo oo la yimaado dariiq oo ambiyada hore u daysado wala mubaddila kalimati illah wax bedeli kara majran kalimaadka ilaahay oo sidaas sunnada ku soconayda qadaa'u allahi wa qadar sidaas ku soconay ilaahay wuxuu yiri wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura wuxuu leeyahay nabi waliba waxaan u sameeynaa cadow oo shayaatiinta insiga iyo kuwa jinniga ah insiguna shayatiin uu leeyahay jinniguna shayatiin qaarkood qaarka kale u waxyoonayaan oo u sheegayaan زخرف القول هذا لا قرقرحيي ورورا سلوغو كدسومو أنا شبهة دلدلايا
adigoo xaqii sheegaya ayay iyagu baatil soo qurqurxinayaan oo isku soo duwayaan oo dariiq walba la marayaan oo kutub ka alifayaan muxaadarooyin ka duubayaan oo ay suuraddaada xumaynayaan taasna ay isku dayayaan duruqda ay wax ku lumi karaan kuwa ugu khatarsan inay maraan zukhruf alqawl ay isku dayayaan marka ilahi wuxuu yidhi jacalna waa u yeelna nebi waliba oo soo baxa sidaasuu ilaahay u sameeyey cadow ka soo horjeeda oo shayaadiinta insiga iyo kuwa jinniga ah ayaa loo sameeyey qof waliba marka ambiyada ku daysado dariiqooda qaaday waa laabudda in ay sidaasoo kale ay ku dhacdo isagana laakiin ilaahay wuxuu faray taxamulka iyo sabarka in la kaalmaysto haddii uu sabro qofku taxamul iyo sabar laga helana ilaahay inuu garab siinayo oo dhibkooda uusan macno weyn yeelan doonin wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an ina allaha bimaa yacmaluuna muxiit haddii aad sabartaan ali oo aad ilaahay ka cabsataan wax dhiba idiin geysan maayaan ma idin dhibayaan dhibkooda waxba idinka dhibi maayo iyo dhagartooda ilaahay isaga yaqaano oo og waxa ay samaynayaan iyo dhibkooda iyo axwaasha ay ku marayaan iyo makrigooda isagaa og ilaahay cafwan بسم الله إلهي مركو حفري صبر كاس فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صبر علي صبر يا ليل وعدك إلهي وأدوية وإلهي بلانو كو قاضي عندات سبرتي إنه إلهي كا قرب سينايو سيدو كلينو كا أجر سينايو وحد دبه إلهي درتيس كوسو قارة مركيان دد وكا أقوانير وكا صبرية وكا عقلية يعني ما ركتي كليدي نو ku yaraysan u sabar afartaas qodob uu marka la yimi sheekh afartaas qodob uga weyn inay waajib kugu tahay والدليل قوله تعالى وحا الدليل إلهي قول كسوير بسم الله الرحمن الرحيم والعصر عصر كيان كل عرض ولو لجد زمنك ودن أن كل عرض إن الإنسان دارت وحويان وحلوات دارت وحويان إن الإنسان إنسان إذا الكيس لفي خسر خسارة كسوية وأشأ الإنسان كجلتا واستغراقية وحيكولا لما وحبك التقي ميدو إنسان كورن خسارة كسوية إلا الذين كوي مويه آمنوا إيمانك لجهل وعملوا الصالحات وناقنا سميان وتواصوا بالحق وحق اسكدر دارمين وتواصوا بالصبر صبرنا اسكدر دارمين آيادان مركا waxaa lagu sheegay insaanku ilaahay markuu dhaartay kadib wuxuu u dhaaranayaana waxa weeyaan weynanka shayga uu ka hadlayo inuu muujiyo ayuu u dhaaranayaa markuu dhaartay kadib wax walibana ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku dhaartahay waxa aan ku tusiyan inay wax weyn yihiin agtiisa ka yihiin oo zamanku ilaahay agtiisa waa ka weyn makhluuqaadkana ilaahay waa ku dhaartaa subxaanahu watacaala laakiin annaga waa naloo diiday sidoo kale waxay muujinaydaa waxa loo dhaaranayaa weynanka hor sheegnay ilaahay marka wuxuu u dhaartay in insaan khasaaro ku sugan yahay idilkiis ilaa qofkii isagu ka badbaada mooye oo dariiqan qaado intaa afartan qodob laga helay ila aladiina kuwii mooyaan aamanuu iimaanka laha wacamiluu saalixaati wanaagana sameeyaan watawaasaw bilxaqi wacamiluu saalixaati wanaagay sameeyaan marka wanaagaas ay samaynayaan iimaankii waa ka mid yahay marka oo iimaanka waatan caqiid ahaan u soo aragnay inuu yahay yani i'tiqaadun wa qawlun wa camal caqiido qalbiga laga caqiideeyo iyo qowl carabka laga yiraahdo iyo camal intaba
لكن ومن باب عطف الخاص على العام شيء خاصة وحلو عطفايا عام كالو عطفايا قرآن وحكو أرات إلهي إنه وملائكة الشاوي جبريل نقار الشاوي يعني ملك لو جبريل إسرافيل ميكائيل وقار الشاوي أنبيادي أنا شاوي وملائكتي انت هدنا جبريل لا شاوي يا ميكائيل لا شاوي يعني هذا واحد تامرك يعني ujeeddo gaar ah laga leeyahay iyo weyneyn gaara iyo muhiimad gaar uu leeyahay ayaa loo soo saaray waa ilaa camalka saalixa wuxuu ka mid yahay iimaanka aamanuu iimaana laga helay caqiidadooda wanaagsanaatay wa camilu saalixaati kadibna wanaagay sameeyeen qofka haddaan caqiida u wanaagsanayn marka camalkii wax u tari maayo waxaa u shardiya oo shuruudda ka mid ah aliimaan waalikhlaas waalmutaabaca intaas markii laga helo camalkiisu wanaagsanaanaya آمنوا إيمانا لجهل وعملوا الصالحات وناجينا واسمين صالح نوع عمل كل نقن كرا إنه إلهي كودرين وعمل إلهي قرآن كيس كسقنا ويا إلهي كفرين ورسول كيس سنة كسقنا أيو صالح كل نقن كرا صالح السمي وتواصوا بالحق حقي اسكو دردارمين حقي اسكو بوريين اسكو دردارمين وتواصوا بالصبر صبرا اسكو دردارمين هذا المركة شيخ حليه هي macnaa qodobadii aan soo sheegnay oo dhan ay kulaasatay oo waxaa ku jira in la barto macrifatullahi wamacrifatu nabiyihi wamacrifatu diinih oo iimaanku ma imaan karo ma dhici karo iyo camalka saalixa allahuma in la barta mooye qofku markuu bartay ayuu rumeeyey halkaasu uu kaga daliishanaya sidoo kale alcamalu bihi waa ka muuqataa wacamilu saalixaati alayhi camal ahaanay u sameeyeen sidoo kale waxaa ku jirta adacwatu ilayhi in la isugu yeeray adacwatu in la isugu yeeray oo waxay watawaasaw alayhi waa isku dardaarmeen oo isugu yeereen xaqii isugu yeereen watawaasaw bisabrina waxa weeyaan in la isfaraayo la isugu boorinayo sabru fiih isku boorinta isku boorinayana waxay tusinaydaa iyagu laftooda inay fartoomayaan ayay ku tusinaydaa marka aayaddan waxaa ku jira afartii qodobba waa ku jiraan oo sheekhu soo sheegay cilmiga in la barto lagu camal falo dadkii loogu yeero in lagu sabro arrintan lagu sabro qaala shaaficiyu raximahu llahu tacaala shaafici wuxuu yidhi low maa anzala allahu xujat ilaahay haddaanu soo deji lahayn xujo calaa khalqi una ku soo deji lahayn ilaa haadihi suurat suuraddan mooye lakafatum waa ku filnaa lahayd buu yidhi alimaamu shaafici waa abu cabdillahi maxamed ibn idriis raximah allahu tacaala waa imaamkaas la yaqaano marka wuxuu yidhi ilaahay haddaanu soo dejin lahayn xujo suuraddan mooye waa ku filnaa lahayd suuraddani marka waxay sheegtay afartaas qodob oo muhiim addoonka u aho oo ah afarta qodob oo maaragtay qofkuba uu ku yahay muslimna uu ku yahay masaa-ishii oo dhanna koobsanayda soo hoosgelayaan diintii o dhan macnaa mujmalaadkii diintii o dhan ay soo hoosgelayaan laakiin tafaasiishii suuraddana kaa kaafinayda loolama jeedo mujmalkii guuda loola jeedo oo hadda oo camilu saalixaati markii la yidhaha camalkii saalixa in la barto ayuu u baahan yahay camalkii saalixa in la barto u baahan yahay tafaasiishiisii si loo samayn lahaa qofku marka intaan markii laga helo qodobadan markii laga helo ayuu wuxuu noqdaa caalim markaasuu caalim noqdaa wixii intaas qofkii laga waayana waxbaa ka dhima caalimnimadiisi waxbaa ka dhima alimaam ibn qayim raximah ullah wuxuu yidhi asalafu mujmicuuna cala ana alcaalima laa yastaxiqu an yusamaa rabbaaniyan salafku waxay ku ijmaacsan yihiin qofka caalimka inaan rabbaani la dhihi karin xataa yacrifa alxaqa ilaa xaqa uu barta marka hore xaqii barta wayacmala bihi kadibna ku camal falo wayucallimahu kadibna dadkii u baray marka wuxuu yidhi faman calima qofkii xaqii garta wacamila kuna camal fala wacallama dadkana bara fadaaka yudcaa cadiiman fii malakuuti asamaawaat kaasaa loogu yeeraa mid weyn qof weyna looga yeeraa malaa'igta agtooda qofkaasaa qof weyna qofkii xaqii bartay ku camal falay kadibna dadkii ugu yeeray وقال البخاري رحمه الله تعالى البخاري وحيري باب العلم باب وحو بابيه العلم قبل القول والعمل علم وحو كهرية وراهضة هي عملك
علمي وعملك وكهر قراهدنا وعمل أيضنا وإن هذا وحقرضه وحقرضاه أما هذا وحدتك ويرته هو عمل مرك علمي وحو كهر عملك وي أنت سوء بابيه أنا إنه حديث كسو سرديو ربا كسو أروري مرك وحيري باب وحو بابيه العلم علمي وقبل القول قولك وكهر والعمل حلقة ربا أنت هذا قول يا أنت هذا عمل السميل إن هذا علمي أهان وبرته يا لا ربا والدليل وحنكو دليل قوله تعالى إلهي وراه سويري علم وحد أوقاته أنه شأن لا إله من حق الوعى وذا مجد إلا الله إلهي مويه واستغفر لذنبك ذنبك أغنى إلهي ذنب دافك ويديسو شيخ مركو فبدأ وحكو بالله بالعلم وحكو بالله علم شيخ محمد بن عبد الوهاب وحكو دري قبل القول والعمل أنا هذا البخاري وحكو إجيه فبدأ بالعلم وإجيه قبل القول والعمل الإمام محمد بن عبد الوهاب أكو دري مرك الشيخ وحو يري علمكم وحو أبا وحو مارت كهرية عملك يعني شيء ولبا أنت هذا السميع عبادة هدو يهينا أنت هذا عبادة كل قاقن وإن أسكحي العاطفة وإن تكون عمل صوشة أن هديو يهي أعمال كلا السمين يديدنا أعمال هذا أدويو وإن أدبرتها ولهذا علماء حيرا هذا نقف قدو قناعسي قلا يا وشغق قلا يا هو القبناي وحكو واجب السيجارة هاند واجب إنه برف وقف مركلك إسكجوجي وقناعسي كجرين واجب كما أهين عيني سيجارة واجب كما أهين بيع برته يعني وعديس لكن marka uu damca inuu shaqaysto shaqadaas qabto si gaar ah ayni waajib ugu noqonayda inuu barto sida loo shaqaysto mideeda xalaasha iyo mideeda xaraamta shaqadaas uu marka qabanayo haduu rabo inuu guursado inuu ahkaamta uu barto nikaaxa iyo waxyaalahaas awal waajib gaar ah uma ahayn muslimiintu la wadaaga oo fardi kifaaya laakiin markuu rabo inuu guursi gaar ayni ugu noqoto cibaadadii iyo acmaashii kala labadaba marka waxa ka horeeya sameyntoodii cilmiga ka horeeya ayadu marka waxay tiri cilmi fa'lam ali lagu bilaabo wastaghfir la dawmarsi marka wastaghfir wa amalki fa'lam ka horeeyda marka intaadan dambi dhaaf ilaahi weydiisan horta cilmi baro dambi dhaaf ka saad ilaahi weydiisan lahayd lafteeda barashay ka rab wax baro marka hore horta ali fa'lam waxa ogaataa annahu shani inuu yahay la ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله إله موي لا إله يعني لا وحكم مغن ماشي وحكم مغن مغدو شيء لكو قدرا أو خبرك بحق إلا لا وحي قادتها اسمي خبر واستغفر لذنبك ذنبك أجينا إلهي كدم إله ويديسو فبدأ وحكو بالعلم وفعلم ويد قبل القول والعمل وراهدي كهر إيو عملك كهر يقول بالله taas marka waa muqaddimadii koobaad oo sheekhu kitaabkiisa ku bilaabay muqaddimada kale oo soo socotana mid ku xigta ilaa rahimakallah u leeyahay markaas kadibna wuxuu u soo laaban doonaa kitaabku wuxuu ugu magac daray waa al-usul thalatha oo saddexda asal ugu horeyda ah macrifatu al-abdi rabbahu wa nabiyahu wa diinahu saddexdaas ayuu u soo laaban doonaa insha Allah ta'ala ilahuna mubarak Allah fiikum wallahu a'lam